بسم الله الرحمن الرحيم. وإذن سلام يا ولاليال وصاحبكينا مولالكينا كابي. runtii barnaamijkan mar badan ayaan 2 jeer ilaa 3 jeer ayaan kasoo sheegay micnaha ay shirkadan ay u furan tahay. runtii horta micno kuma fadhido nolol kasto aad ku jirto, laakiin mar walba horumar waa lama huraan. runtii sida laga shaaciyay yani bangiga adduunka 40% dadka mujtamaca caalamka ku nool ma haystaan system bangi ama systemka lagu dhigto lacagaha bangiyada. wax mar walba ay rabaan inay la xaajoodaan lacagahooda ama ay wax ku sameystaan waxay lacagahoodii mar walba ku kaydsadaan guryaha. waxaa kaloo oo mar walba la raadiyaa dad hal abuurayaal ah oo mar walba ka shaqeeya sidii heerkan qadiimiga ah looga bixi lahaa. runtii waxaa yimid shirkad cusub oo hadda ka hor in yar aan ka taabtay oo magaceeda la yiraahdo One Life. teknolojiyada caalamka hore ayay mar walba u sii socotaa, hore ayay u sii martay oo kaasoo awood buuxda looga helay in habka lacagaha kaydka loogu dhigto bangiga uu mar walba u noqdo mid aad iyo aad yani u sii socdo ama adduunyada uu la socdo. inkastoo maadaama oo la helay yani teknolojiyad caalami ah oo fududeyn kara qaabkii loo dhigan jiray lacagaha bangiyada. yani waxaa soo baxay marka shirkadan cusub oo la yiraahdo One Life ama One Coin. lacagta isticmaashan waxa la yiraahdaa One Coin. waa shirkad u shaqeysa sida shirkadaha xawaaladaha oo kale, waa shirkad u shaqeysa qaabka bangiga oo kale, waa shirkad dhexdeedii laga shaqeysan karo, awood u leh inaad ka heli karto yani hanti aad kaga noolaan karto inta aad nooshahayba. runtii lacagaha maanta aan isticmaalno waxaa loo yaqaanaa afka ingiriisiga waxaa lagu yiraahdaa fiat currency ama lacagaha warqadaha ka samaysan. mar walbana waxay dhalisaan lacagahaas inay hoos u dhac ay sameeyaan ama ay sicir barar ay sameeyaan. hase ahaatee shirkadan waxaa ka horeeyay shirkad kale oo la yiraahdo Bitcoin. shirkadaasoo waqti badan gelisay oo dadkii waqtigaas galay 95 ay soo bilaabatay saan filay shirkadaasi. dadkii waqtigaas galay hadda waxay noqdeen dad aad iyo aad ay u najaxeen ay uga faa'iideen shirkadaasi. hase ahaatee tan waa qaybtii labaad ee shirkadan. marka saas darteed ayaa mar walba barnaamijkan aan ugu sameeyaa celcelin saad ugu faa'iideysataan oo hadhowdii aad u noqotaan dad yaqaana yani qaabka ganacsiga loogu shaqeysto bangiyada. waana shirkad haddii aad gasho aad u dhabar adeegto aad ka faa'iidi karto runtii 100%. يعني maadaama in badan aan ka akhriyay aniga xitaa xoogaa shaki ayaan ka qabay inaan shirkadan galo, laakiin markaan akhriyaan ogaaday Soomaali badan ay ku jirto oo markaan fiiriyay hal aan u wareystay qaarkoodii ama aan kaga akhriyay yani akhbaaraadkoodii ayaan waxaan ogaaday inay xoogaha ay ka heleen shirkadii. saas darteed ayaan anigan marka igu qasabtay inaan galo oo aan daba ceersado marka dadkaasi. marka walaalayaal yani ha ka shakinin shirkadan inaad u timaadid, waa inaad soo gashaa oo aad kaga faa'iidaa mustaqbalka dambena aad rajeynaysid inaad wax fiican aad kaga heshid. hadaan kuu sheego horta shirkadan sideedii waa globally caalamka oo dhan ayaa loogu jiraa shirkadan. dadka adduunyada yani intaasoo qaarad 6 qaarad adduunka ayaa kaga jira. waa tirada dad ee memberada ka ahna waa in ka badan 3,400,000. shirkadan waxaa la rajeynayaa in ilaa 2020 laga gaaro inay gaaraan dad gaaraya 10 milyan oo kale. waxaa kaloo jira fursad kale. shirkadii waxay ahayd markii hore in suuqeedii wuxuu ku yaalaa Middle East, wuxuu u yaalaa Dubai. waxay ahayd in shirkadan suuqeedii la furo September 8. hase ahaatee inkastoo dadkii codsiyo badan ay sameeyeen ayaa waxaa loogu sameeyay in suuqa la geeyo, laakiin waa January 8 inay 9 ay taayaan darajeynaya ayaa ay ugu egtahay in member laga noqdo. dadka soo galaya markaa January haddii xirato dadka kale waxay noqonayaan dad macaamiil la leh dadkii ku jiray, ma ahna dad cusub oo la qori doono ma jiro. marka fursadaas lagaga faa'iideysto marka si degdeg ah ha loo soo galo intii marka awood u heli karta inay shirkadan yani hadhowdii ay kaga faa'iidi doonto. runtii lacagta isticmaalayso shirkadan waa sida Bitcoin oo kale, waxaa la yiraahdaa lacagaha digitalka haatan adduunyada laga isticmaalo oo la raba in loo guuro muddo dhow oo mustaqbalka dhow in loo guuro oo loo yaqaano cryptocurrency ayaa la yiraahdaa. lacagta waa lacagaha lagu isticmaalo mobilada
ama internetyada ama kombiyuutarada laga isticmaalo wayna ka dhaqsi badan tahay lacagaha aan xawaaladaha aan ku dirsano lacagaha bangiyada aan kaga dirsano mana lahan bangi dhexe oo lacagtaas ay ku marayso markaad xawaalada u sameynayso waxa kale oo jira qaabka yani shirkadda ay u shaqeyso waa qaabab aad u fara badan tusaale ahaan mar haddaan kuu sheego waxaa laga yaabaa inaadan aaminin shirkaddan waxaan lacag cadaan ahayn say ku noqonaysaa inaan isticmaalo waa macquul sababtoo ah mar tusaale haddaa usoo qaadatid waxaa jiray sawiradii aan kor ku qoran waa qaabka marka sawirada la isticmaali jiray sawirada footooyinka ayaa loo tigi jiray waxaa la isticmaali jiray waxa loo yaqaan baniika lahaasoo markaa la sugi jiray muddo usbuuc ama usbuuceyn ah kadib ayaa lagu soo cadeyn jiray waa laga soo gudbay waxaa loo tegay teknolojiyada hadda la gaaray waxaa la sameeyey noocan softwareka la yirahdo Instagram oo si degdeg ah aad u sameeysan karto marka sawirka rabtid waxaa kaloo jiray boostada marka baqshadaha isticmaali jirtay boosta la tagi jiray baqshadihii aad kaga dirsan jirtay meeshii waa laga soo gudbay waxaa jira aaladan hadda WhatsApp la yiraahdo oo ilbirqsi qofka rabtay inaad ugu dirtid sawir ama qoraalka ama information ka rabtid marka waxaa kaloo jiray shirkadan filimada oo sameeyo blockbuster iyo waxyaabaha la yiraahdo waxaa soo baxay marka Netflix Facebook oo kale waa aragteen Facebook oo kale waxa waa qaybka wax laga akhristo jaraa'idada laga akhristo uma baahneed marka in aad suuq aadido jaraa'id aad soo gadatid waana macquul hadda in lacagtaadii aad ka isticmaali kartid mobilka adoona jeebka lacag ku qaadan ha isdhihin wax soconaya ma ahan intaan oo tusaale ayaa la soo maray iyo heerka hadda la joogo tanna waa teknolojiyadii ayay la socotaa walaalayaal marka waa fursad aad iyo aad u qiimo leh waa markii labaad markii saddexaad aan sharxaad ka bixiyay hadda wixii ka dambeeyay waxaan rabaa qaabka marka shirkadda aad soo gashid qaabka aad ula socon lahayd iyo qaabka aad yani dashboardkaaga ula socon lahayd shirkadaadii iyo bangigaagii iyo lacagahaadii saad u kala maamuli lahayd haddii ay kuu soo gasho lacagtii ayaan insha allahu tacaala sharxi doonaa waxaa kaloo jira marka qaabka aad shirkadda aad usoo galayso waa mobilekii qaabka loo dirsan lahaa waay waa e-commercigii bankigii iyo security qaabkii aad lacagta aad transferka aad ugu sameyn lahayd waana macquul hadda Soomaaliya marka aragtid waxa la isticmaalo waa mobile oo lacagta laga dirsado waa EVC waxaan ugu yeerno waa qaabka hadda shirkaddan qaabkaas oo kale oo casri ah oo isticmaalayso aan shaki aan ku jirin in faa'iido aad ka heli doonto marka aad soo galayso shirkadda waa inaad qarash aad gelisaa horta waa inaad member markaa noqonayso waa inaad qarash aad gelisaa qarashaadka aad gelinayso shirkaddan One Life waxaad gadanaysaa package intaan aad u jeed waa package-yada shirkadda aad ka gadan lahayd si aad member ugu noqoto package-ka u horeeya waxa la yiraahdaa starter ayaa la yiraahdaa waa qaybtii bilow ahaa marka lacagta aad bixinayso waa 110 euro lacagta isticmaalayso shirkaddan ee lacagaha ma ahan dollar waa euro hadhow ayaa adiga u bedelan kara marka qaabka dollarka ayaa adaa u bedelan kara u sarifan kara laakiin lacagta isticmaasho shirkaddan currency-ga isticmaasho waa euro starter mar hadaa gashid starterka wuxuu ku siinayaa package-ka marka hadaa gadatid wuxuu ku siinayaa abaalmarinta aheyd oo loo yaqaano tokens kaas waa number oo hadhowdii aad kaga bedelan kartid lacag tokenka uu ku siinayo muxuu yahay waa 800 oo token 800 laba bilood ilaa 3 bilood gudahood ayaa wuxuu sameynayaa 800 ayuu adaan split ayaa kaaga dhacay split waa laba raab waa laba jibaar 800 ayaa hal mar ayaa laba ku noqonaysa maxay noqonaysaa marka 1600 split kala minute waa maximum splitka uu leeyahay uu ku sameynayo waxaa jira trader waa kan aniga hadda aan isticmaalayo waa 550 euro waxaa kaloo jira 550 markaad bixiso ayaad 30 euro ayaad ku daraysaa oo activationka lagaga sameynayo marka u horeysa ee ku siinayso waxay tahay 4000 meesha 800 ay kaasis 4000 oo token ayay ku siinaysaa tan tokenkan oo hadhowdii splitka kugu dhacay labraab kugu dhacay wuxuu ku noqonayaa 8,000 8daas kun hadhowdii waxaad u bedelan kartaa marka wixii la dhahi jiray one coin ayaad u bedelan kartaa meel waxa la yiraahdo oo u dirayso mining kaasoo sameeya machine la yiraahdo blockchain kaas cash ma sameeya marka wuxuu sameeyaa number kaas oo u dhigmo lacagta loo yaqaano one coin marka waxaa jira trader qaybo badan oo lacag ka sii badan midkan ayaa jira pro trader ayaa jira 1,100 waxaa jira tycoon ayaa jira 5,500 oo euro markaad bixiso pro traderka marka 1,100 aad bixiso meesha 4,000 aheyd meeshan wuxuu ku siinayaa 8,000 oo token laba bilood ka bacdi wuxuu ku noqonayaa marka 8,000 kaas ayaa wuxuu ku bedelayaa marka inuu kugu diro bangiga qaybta mining aha uu ku sameeyo one coin kaaga sameeyo hadse ahaatee kaliya ma aha inaad lacag dhigatid oo aad isaga aamusto waa inaad ka dul shaqeysaa shirkadaas oo sida macaamiil aad u keeni lahayd qofkii aad keentana waxaad ka helaysaa
commission kaasoo usbuuciiba mar lagu siinayo qof alla qofkaa keentay boqolkiiba 10 ayaad ku leedahay boqolkiiba 10 euro ayaad ku leedahay qofkaad keentid qofkii 550 hadda markaa keento qofka 550 uu bixiyo waxaad ku leedahay shirkadda 550 euro ayaad ku leedahay ujeeda 5500 euro qofka aad keentid oo gato waxaad ku leedahay 550 euro waana lacagtaas isniin kastana way bixisaa shirkadda waxa kula jira barnaamijyada baakijada ujeed waa baakijo waxbarasho maxay ku baraysaa marka waxay ku baraysaa qaabka forex-ka qaabka loo isticmaalo waxbarashooyinka iqtisaadiyada ama waxbarashooyinka lacagaha la isticmaalo bangiyada loo isticmaalo qaabka loo isticmaalo ayay ku baraysaa hase ahaatee qasab maaha inaad baratid laakiin waa arrin aad u wanaagsan markaad barato waxayna ku siinaysaa marka abaalmarino oo ah shahaadooyin inay ku siiso hadba markaa su-aalaha lagu weydiiyo imtixaanka aad gashid shahaadooyin ayay ku siinaysaa kadibna waxay ku siinaysaa abaalmarino oo promotiona oo tokeno kale aad kaga helaysid haddaba walaalayaal inaan saas ugu dheeraado marow aad iyo aad ayay yani sharaxaad u badan tahay laakiin waxaan rabaa haddii aad fursad u heli karto shirkadda One Life waa fursad ayaan idin leeyahay waa fursad aad kaga faa'iideysan karto mustaqbalka dhow oo aad ku noqon karto nin يعني businessman ama business women oo kale inaad ku noqotid marka ku soo dhawaada gacmo furan waxa idin sharaxadan gaaban idin jeedinaya waa walaalkiina Cabdirasaaq Kaabi gacmo furan ku soo dhawaada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wixii hadda ka dambeeyana insha Allah waxaan idin sharxi doonaa marka shirkadda aad member aad ka noqoto aad gadato oo package-ka aad gadato qaabka aad u gali lahayd iyo qaabka aad ula socon lahayd xaaladda hadba meeshay marayso wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. One life. It feels good, right? Being part of this movement. You ready? Yeah. One life, one vision, I salute ya. Cause cryptocurrency, yeah, that's the future. We making history, we gotta keep it going. The future of payments is one coin. The first cryptocurrency for everyone. They just wanna get you started, it's time for you to join. Yeah, one coin, come and be part of a movement. One coin, the financial revolution.